waxaa shalay oo Jimcaha qubuuraha Saale degmada Wanlaweyn lagu aasay nabadoon Liibaan Macalin Ibraahin oo khamiistii la soo dhaafay ku geeriyooday magaalada Baydhabo caasimadda ku meel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Aaska nabadoonka ayaa waxaa isagu yimid khalaa'iq aad u fara badan oo ka kala yimid gobolada dalka iyo hareeraha degmada. Maamulka degmada Wanlaweyn ayaa ka horbaxay marxuumka waxayna u soo galbiyeen gurigiisa waxayna u tacsiyeen eelkii iyo qaraabadii uu ka tagay. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waxaan ka tacsiyeenaynaa geeridii naxdin lahayd ee ku timid nabadoon Liibaan Macalin Ibraahin kuna soo dhintay magaalada Baydhabo ee xarunta maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Hadda waxaan taaganahay xarishiino afaafka hore ee Baladogle meydka waan soo gaar alxamdulillah dhammaan ehelada qaraabada waxaan kaga tacsiyeenaynaa geeridaas xanuunka waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Sidaa daraadeed waxaan hadda isu diyaarinaynaa duugtiisa dhammaan heer Wanlaweyn ama ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay nabadoonka waa taqaaniin wuxuu ahay nabadoon magac dheer ku leh dalka. sidaa daraadeed waxaa mar labaad ima soo kaga tacsiyeenaa ilaahay naxariisna Allah siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. doonkaas qaaliga ahaa oo hadda xalay ku geeriyooday magaalada Baydhabo oo hadda la soo gaaray saacadan la joogo oo taaganahay xarshiinaha nabadoonkii Liibaan Macalin ilaahay naxariis jana Allah ka waraabi anagoo ah dhammaan maxay ahayd dhalinyarada iyo sidoo kaleeta waxaan tacsiyay tiiraanyo leh aan la wadaagaynaa ummadda islaamka ah dhammaan meel walba ay joogaan waxaan leenahay Abba Liibaan Macalin Ibraahin Xasan Allah ku siiyo jannatul firdaws Allah ku waraabiyo insha Allah. aaska nabadoonka ayaa waxaa isagu yimid khalaa'iq aad u fara badan waxay janaasadiisa ka dhacday barxadda weyn ee Lafoole oo boqolaal muslimiin halkaasi ugu duceeyeen kadib waxaa loo soo dheelmiyay gurigiisa Xayaatul Barzakh ee qubuuraha ku yaala Califka magaalada Saale. aaska kadib waxaa halkaasi ka hadlay nabadoon Ibraahim Maxamed Rooble oo yar ka taabtay taariikhda Allah u naxariisto nabadoon Liibaan Macalin iyo nabadoon Awliid iyo ugaaska Afgooye kalmado baraarujinna ummadda u soo jeediyay. geega degmada Wanlaweyn nabadoon qaali ah oo shan caleemood ah oo oday Soomaaliyeed ah oo nabadoon Soomaaliyeed ah yaa geega meelan taasidiisa yaale ilaahay naxariis janna Allah siiyo nabadoonka ma sha Allah tabarakallah 85 sano yaa ka dhimaday 40 sano oo soo jiro yaa xilka qabaday 45 sano xilka haay ilaahay naxariiso nabadoon oo shan caleemood ah oo geesi ah oo oday Soomaaliyeed ah oo nabadoon Soomaaliyeed ah yaa geega degmada Wanlaweyn yaa ku bixi marka sidaa daraadiya ilaahay naxariista janna Allah siiyo ummadda Soomaaliyeed dhanna ilaahay naxariista janna Allah ku siiyo dhammaanteen hala afiyo insha Allah taala ilaahay idin sheey kulay dad kale hadda oo dambooye marka nabadoon nin qaali ah nin haaye ilaahay naxariista Allah siiyo ninba waqti sheey waqti malinka daraaw marka dhammaantiin insha Allah salaamantiin. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun unugo odayaalka dhaqanka deegaanka Wanlaweyn shan caleemo ama martidiye ways taasiye qaas indiraane bulshadeenta ka nool ummadda muslimiinta meel kasta roogaan daafeed way Baydhabo ka dhimaday nabadoon qaali aad iyo aad ilaahay qaal ku dhiki 45 sano shaqeeyay ummadiis bulshadiis reer daafeed iyaa ka dhimaday nabadoon Liibaan Macalin Ibraahin nabadoon Soomaaliyeed ahaay ma ahayni nabadoon shan caleem kareediye ma ahayni goboli ka jiro nabadleyn ku taba jiray ma olmal ku taba jirnay bulshada Soomaaliyeed way sheegaanay inay isku afiyaan nabadoonkaas hadii qofkii qalad usoo galay maleeyaa ilaahay dartiis inuu isku afiyo nabadoonkaas dhimidi ma soo nagadaaw lankii adduunyo korshe ka nool nabadoonkaas isku afiya dhamaantaan afini way isku codsadaane nabadoonkaas inii la afiyo booski isku bahon adoon oo kale ama deegaanka Wanlaweyn dhimada Allah sheeno in hadal badinay ilaahay jannada dadka iska dhabaaya ilaahay ku dhig bilsoon dhimidi lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ogaas nabadoon Liibaan Macalin Ibraahin sugoo yar oo ku dhashay meesha la yiraahdo Doon Silaaxla oo garfaala ka sokeysa ilaa waqtigaas ilaa aan yareen xoolo aan isla soo ilaalin jirnay ganacsi aan isla galnay ilaa Kismaayo meel xagga ka jirto oo kul biyo la yiraahdo ilaa xoolaan iskala soo iibsan jirnay muddo badan aan soo wada shaqeynay taariikhdiisa nin yar ma aha ninkaas taariikh weyn oo soo mari haddana 45 sano odayaasha dhaqanka odayga ugu firfircoon oo ahaay degmada Wanlaweyn ninka ka muuqda odayaasha ayuu ahaa nin waxa ma ahayn nin qaali ah waa ninkaas ilaahay sabar iyo iimaan Allah naga siiyo sabar iyo iimaan ninkii yaqaan ninkii magaciisa maqli iyo ninkii wajigiisa yaqaanbo oday qaali oo ahaa sabar iyo iimaan Allah naga wada siiyo qaar kamid ah ummadii halkaasi isagu timid ayaa iyaguna ka tacsiyay geerida naxdinta leh. inna
lillahi wa inna ilaihi raaji'uun maanta ay jimco ay tahay waxaan halkan ku aasaynaa nabadoonkii gobolka Shabeellaha Hoose nabadoon Liibaan Allah u naxariisto naxariistii janna Allah si aan leenahay waa nabadoon run ahaantii taariikh dheer mug iyo miisaan ku leh oo ahaa geeyga Koonfur Galbeed Allah u naxariisto inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun الله naxariistay nabadoon Liibaan Macalin ayaa dhashay sanadka markuu ahaa 1935 wuxuuna ku dhashay tuulada lagu magacaabo Doon Silaxle rabbi ha u naxariistay nabadoonka ayaa wuxuu ku suntanaa taariikhdiisana ugu jirta inuu kaalin liiwaxle ka qaatay kana mid ah odayaashii ka mira dhaliyay nabadeynta iyo walaalinta beelaha degmada Walnaweyn nabadeyntaas oo tusaale loogu soo qaato xalinta khilaafaadka beelaha iyo jeerdirirtu dhex marto wuxuuna ka mid ahaa nabadoonada mugga iyo miisaanka culus ku leh bulshooyinka degmada Walnaweyn waxaynu ilaahay ugu baryaynaa inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo eelkii iyo qaraabadii iyo ummadii ka baxana samir iyo iimaan Allah ka siiyo aamin 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 Cabdi Qani Maxamed Xasan warbaahinta Koonfur Galbeed Walnaweyn